wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo la sheegay inuu ka soo baxay xafiiska aayatullaahiga Iiraan. haddaba aan idin tuso warkan iyo waxa laga qoray telefishinka Ruushku leeyahay ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu leeyahay xafiiska Mujtaba Khamenei waa aayatullaahiga Iiraan ayaa wuxuu ka jawaabay eedeymo iyo dacaayado la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa iscasilaada madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian iyo mowqifka arinka uu ka taagan yahay aayatullaahiga waddanka Iiraan. haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay xafiiska xiriirka dadweynaha ee hogaamiyaha sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa beeniyay isagoo oo aan magaciisa si toos ah u xusin hadal loo nisbeeyay Mohammed Bakhir Kharazi oo ku saabsanaa arinta iscasilaada madaxweynaha dalka Iiraan. haddaba bayaankan ayaa wuxuu si toos ah uga soo baxay xafiiska xiriirka dadweynaha ee aayatullaahiga Iiraan. maamulaha haddaba waxaa la sheegay maalmihii u dambeeyay qaar ka mid ah hadallo loo nisbeeyay hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ayaa lagu faafiyey baraha internetka kuwaasoo nasiib darro lagu sheegay saldhig u noqonaya jahawareerinta ra'yiga dadweynaha iyo abuuridda kala qaybsanaan gudaha dalka Iiraan in laga shaqaynayo. haddaba sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay aayatullaahiga xafiiskiisa qoraalka lagu daabacay internetka ee uu qof ku sheeganayo jawaabta hogaamiyaha kacaanka islaamiga ee ku aadan warqadda madaxweynaha sharafta leh gebi ahaanba waa been oo waxba kama jiraan. bayaanku wuxuu carabka ku adkeeyey in isha rasmiga ah ee lagu daabaco fariimaha wararka iyo qoraalada la xiriira hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ay yihiin madasha warfaafinta xafiiska hogaamiyaha kacaanka. haddaba hadallada dhawaan ka soo baxay Mohammed Bakhir Kharazi oo ah wadaad xiriir dhow la leh qoyska hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ee ku saabsan Mas'uud Pezeshkian madaxweynaha Iiraan ayaa si weyn loogu baahiyay warbaahinta Iiraan iyo baraha bulshada. ninkan la yiraahdo Kharazi ayaa sheegay in Mujtaba Khamenei oo ah hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan uu qoray haddii Pezeshkian mar kale iscasilo waan aqbalaynaa iscasilaadiisa. marka meesha waxaa laga abuurayaa oo la buunbuuninayaa war uu leeyahay xafiiska Mujtaba anagu ma qorin warkaas. hogaamiyihii inuu iscasilay hadda ka hor oo maaragtay waa madaxweynaha la joojiyay haddana hadduu iscasilo hogaamiyaha uu leeyahay waa aqbalaynaa. marka meesha waxaa la abuurayaa tashwiish ku saabsan in madaxweynaha Iiraan iyo aayatullaahiga iyo madaxda Iiraan uu khilaaf uu ka dhex jiro macnaha noocaas ayaa la abuurayaa. marka xafiiska wuxuu beeninayaa arinka ku saabsan warkaas wuxuu leeyahay wax ka jira warkaasi ma jiraan. qodobka marka halkaas kaga gudbaynaa sheeko kale ayaa iyaduna soo baxday. nimankii Israa'iiliyiinta waxaa leeyahay ciidankooda badda dhoolatusay badda ka samaynayaan iyagoo u diyaar garoobaya dhoolatuskaas u samaynaya sidii ay iskaga caabin lahaayeen Iiraan marka ay badda soo weerarto. badda maxaa ku yaala meeshii biyihii laga samaynayay maaragtay gaaska laga soo saarayay Israa'iil gaaska badda meesha ka soo saaraysay tamarta meesha laga dhalanaya wixii oo dhan badda waaye. Iiraan marka waxay tiri haddii Mareykanka uu isku dayo inuu annaga kaabayaasheena dhaqaalaha burburiyo weerar weyn nagu soo qaado Israa'iil meelaha aan annaguna nagta ka saari doono waa meesha gaaska ay ka soo saarto wana isha kaliya ee Israa'iil ay dibadda u dhoofiso gaaskaas waaye. gaaska marka hadda saan u difaacan lahayn gaaska ayaan dhoolatus samaynaynaa ay leeyihiin ciidanka badda waxaana ku jirnaa istinfaar wax la yiraahdo. annaga heegana ku jirnaa mar walba Iiraan way na soo weerari kartaa. marka Iiraan aan ka baqaynaa inay kaabayaasheena iyo ilaha dhaqaalaha aan haysano ay naga burburisay leeyihiin. haddaba marka aan tuso telefishinka Ruushka ayaa wuxuu leeyahay markii Iiraan ay hanjabtay kadib Israa'iil waxay gashay heegan dhanka badda ah
haddaba warbixin lagu daabacay qaar ka mid a warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayaan hanjabaadihii ka yimid Iiraan dhowaantan oo ahaa inay haddii weerar weyn lagu soo qaado iyaduna ay bartilmaamaysan doonto istaraatiijiyadda goobaha halbowlayaasha dhaqaalaha gobolka. haddaba meelaha ay tilmaantay Iiraan inay weerari doonto oo ay ilaamisay waxaa ka mid ah goobaha tamarta laga dhaliyo Israa'iil iyo meesha korontada warshadaha biyaha soo saara sidoo kale gaaska meesha laga soo saaray ee badda Mediterranean-ka la yiraahdo oo Israa'iil ay halka gaaska ka soo saarto. hadda marka waxa la ciidamada badda Israa'iil waxay bilaabeen inay halka dhoolo tusyo ka sameeyaan waayeen marka sheekada iyaduna halkaas ay maraysaa. warka kale wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa goordhow war soo saartay maalmahan waxay wada hadallo u socdeen Cumaan iyo Iiraan waa labada wadan ee Hormuz iyagu dariska la ah. marka waxay leeyihiin Iiraaniyiintu hadda wada xaajoodkii noo socday meel fiican oo noo maraya heshiis inaan gaarno mar dhow waxa dhan aan ku heshiino sidii loo mari lahaa meesha ayaanu ku heshiinay. haddaba markaan idintu soo warka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa soo saartay war caawa waxay leedahay wada hadalladii noo dhaxeeyay annaga iyo saldanada Cumaan waa wada hadallo meel wanaagsan maraya. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa la hadlay saxaafadda wuxuuna sheegay iyaga iyo saldanada Cumaan inay aad uga wada hadleen habka amniga ay u marayaan maraakiibta dhanka Hormuz. haddaba wada hadalladii noo socday annaga iyo Cumaan waxaa diiradda lagu saarayay arinta maraakiibta galaysa iyo kuwa ka baxaya dhanka Hormuz iyo sidii amnigooda loo damaanad qaadi lahaa. dhanka kale saldanada Cumaan iyo wuxuu sheegay iyo Iiraan inay yihiin labada dowladood ee iyagu markaa mas'uulka ka ah marinbiyoodka Hormuz. Amerikaan iyo qabqab iyo wax ka gala malaha meesha annaga waaye dadka meeshan go'aankeeda gaari kara. dadkan kale oo dhan waa iska hadlayaan wax ka jira marka malaha warkaas. marka Iiraan waxay leedahay meel fiican anaga iyo Cumaan isla marsiinaynaa waanu ku heshiinaynaa hawshaas heshiiskaasna mar dhow ayaan shaacinaynaa. waaye qodobka halkaas ka gudbaynaa. qodobka ugu dambeeya barnaamijka caawa waxaan ku soo qaadanaynaa gantaalo halis ah ayay yiraahdeen ciidanka Lubnaan waa qabanay. gantaalahaas marka waxay yiraahdeen waxay ka yimaadeen Suuriya waxayna u socdeen sida wararka qaar ay sheegayaan Xisbullah. Suuriya ka yimaadeen Xisbullah u socdeen. gantaalahan marka waa gantaalaha la yiraahdo garaad la yiraahdaa waxa la aaminsan yahay inay yihiin Suuriya in laga soo gaday oo dawladii hore oo Bashar al-Assad hubkii ay ka tagtay gantaalahan garaadka waa kuwii hore qadiimka waaye inay kuwa ay halka Xisbullah iyo ka soo gateen oo la soo gelinayay gudaha Lubnaan oo Xisbullah sidaas loogu geynayay oo Xisbullah ay markaa dagaalka Israa'iil u isticmaali doonto ayaa qorsho ah. marka hadda ciidanka Lubnaan waxay leeyihiin hubkaas waa qabanay. marka hubkan iyo nooca uu yahay iyo wixii laga qoray telefishinka al-Arabiya ayaa goordhow qoray ciidanka Lubnaan waxay sheegeen maanta Talaada inay fashiliyeen isku day hub lagu tahriibinayay kaasoo ahaa sawaariiq kuwaasoo laga keenay dhanka Suuriya Lubnaan la soo gelinayay. howlgalkan amniga ayaa waxaa la sheegay in markaasi looga hortagayay sawaariiqda nooca loo yaqaano Grad kuwaasoo la sheegay in la qabtay 2 qof oo ka mas'uul ahayd soo tahriibinta gantaalahaasi. shabakad isku xiran oo tahriibisa hubka ayayna ka tirsanaayeen. waxaana la sheegay in arintani ay ku soo aadayso xilli wada hadallo mar kale ay uga furmeen magaalada Roma ee dalka Talyaaniga wafuud ka socotay dawladda Lubnaan iyo Israa'iil halka ay ku wada hadlayaan. marka tani waxay u noqonaysaa dawladda Lubnaan tallaabo ay ku muujinayso in aysan ogolayn wax huba in dalkeeda la soo geliyo oo marka ay u tagaan Xisbullah. marka iyaduna waxay leeyihiin dawladda Lubnaan hubkaasaan qabanay ma u ogolin. marka ilaa hadda ma jiro eedeyn rasmi ah oo dawladda Lubnaan ay leedahay hubka wuxuu u socday Xisbullah cadayn mayso. Xisbullahina
kama aysan hadlin hubkan annagaa lahayn uu noo socday iyo nooma socon iyo waxba iyaguna shaqo kuma laha laakiin hubkan waa la soo bandhigay sawiradiisa gantaalaha nooca ay yihiin iyo dadkii watay waa la xiray shabakad tahriibisa hubkaana hay yidhaahdeen marka baaritaankaas ayaa isaguna socda haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa barnaamijkeenna habeennimo laygareeya oo sheergareeya haddii allaydno wixii akhbaaraada ee soo kordha barnaamijyadayda kale ee soo socda ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad naga daawanaysaan nabad